haddaan dhex galo ajandahayga iyadoo aan abaar lahayn waxaad ogtihiin maanta abaaraha Soomaaliya ka jira hadda roob baa da'aya laakiin roobkii waxaa ka horeeyay abaar xoolihii ay ku dhamaadeen waliba gobolkan aan hadda ku noolahay especially Jubaland markaan ka soo tagno Jubada hoose nolosha dadku waxay ku tiirsanayd lo'dii waxaan arkayay maalin xaasan inaan la hadlayay 600 oo neef ninkii lahaa 30 neef baa u soo hadhay 30kii neef inuu banaanka ku sii hayaay waa culays de xoolihii oo taagan oo roob u da'ay haddana inuu iskaga tagana waa culays kale mushkiladda dadka haysatay qayb ka tahay qof walibana wixii uu ku soo barbaaray kama tagi karayo abaarahaasi wax badan baa sababaya waa mid roobabkii di'i jiray waddankani dhalinyaraad u badantiina dadkii horey u joogi jiray dayraha roobka di'i jiray iska daaguuga wuxuu ahaa roobab la yaqaano oo dhulkan iska daaweel inuu buuxsamee biyuhu meel laga mara la waayi jiray gobolkan baawur elji la yidhaahdaa ka socon jiray marka roobku doo wax baabuur oo kale lama haweysan jirin hadda 2 maalmood yaa jeedku xidhnaadaan gaariga qooqantaana iska maray taas marka waxaa isbedelay cimiladii completely shalay wixii ay ahayd waxaan ahayn baa maanta jira idan lo'dii la dhaqan jiray ee dhowr kun oo neef qofku u lahaa maanta waxaa lagu soo noqday 10 neef inuu qofkii sheeganayo ama qofka ugu badan oo 100 neef uu sheeganayo environmentigii iyo bay'adii laftirkeeda wax badan baa iska bedelay waan isleeyahay cudurka kudka ee ku dhacay environmentiga hay'adaha laftirkooduna qayb bay ka yihiin maxaa sababaya xilliyadii ay dowladda dhexe Soomaaliya jirtay waddankan waxaa laga qaban jiray ceelal iyo waro marka taariikhda hadda dib ugu noqoto waraha waddankan ku yaala 40 kilomitir bay isu jiri jireen ama 30 kilomitir iyaga 10 kilomitir roundkoodu noqon jiray warahaas area-da ku fadhiyaan rasaalada wareega iyo wareega kale 30 kilomitir inuu dhaxaynayso ceelashana 30 baa u dhaxaynayso maxaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay dhulkan in loo kala saaro dhul saba ah ama dow ah oo xooluhu ka cabaan iyo daaqsin hadda projectiyeer baa la soo helaa cagaf baa la soo diri meel boor baa laga qodayaa wartan iyo wartan kale oodooda way saaran yihiin tan iyo tan kale way saaran yihiin idan environmental problem waxaa keenay hadday wixii saba ay noqoto sabadu way ka duwanaanaysaa dhulkii daaqsinta ahaa oo taas baaba bay keentay ama ceelasha ha noqoto ama waraha ha noqoto waayo waxaa la leeyahay abaar baa jirta biyo dhaamin iyo waro iyo ceelal ha laga shaqeeyo looma meelday dhoobley oo aan garanayo 60 geel ay maalintii ka cabistay geelaasi maybe 100 neef inuu yahay ama inuu ka badan yahay 60 geel 60 ulood 60 kadin whatever qof waliba siduu u yaqaan ay maalintii ka cabistay 3 ceel baa ku taal oo laba ay shaqeynayso ka dhoobley maanta 12 ceel baa ku taal yaa ka caba 12 ceel biyo gelinta magaalada 2 ceel baa ku filaan karta oo midna uu biyo geliyo midna uu spare noqdo oo loogu talagalay hadii in case ay wax dhacaan oo kale meel central lagu kala wareejiyo ay yeelan karto 12 ceel tuulo walbana waxa la yidhi raashibaa la isu qoraaye tuulooyinku steps iyo waxay isu jiraan mitir iyo 10 mitir iyo 20 kilomitir 5 kilomitir halkan laga bilaabo dhoobley ilaa xeebta Raaskambooni waa 254 kilomitir 254 kilomitir waldeyna iyo kulbiyow iyo Raaskambooni saddexdaa deegaan baa ku taala marka laga tago meelaha qaarkood oo miyi ay xoolo waliba dhinacaan faafi oo kale iyo markaad kulbiyow u dhawaato raamadan warkeeda iska daa xoolo deganaa iyo tuulooyin ma jiraan maanta inaga iyo waldeyna meeqa tuulo ay noo dhaxaynaysa يعني ويسو muuqdaan talaabooyinka iyo tuulooyinka iyo waxa soo dhanna waxay ka mid tahay caqabadaha ama nabaad guurka keenaya ama nolosha qaabka ay tarkiibka noloshii siday u kala daadanaysa qayb ka tahay iyada laftirkeeda
dadku hadday xooluhu ka baaba'een marka waxay u baahan yihiin waxqabad ka bedelan horeyna hay-adaha idinka waaweyn iyo qoladiinanba waanu sheegnay waad ogtihiin dadkii Soomaaliya 1974 ku barakacay abaari dabadheer dawladdii mashaariic bay u samaysay ama kalluumaysi ha noqoto ama beeraha ha noqoto waa dadka maanta waddanka Soomaaliya xukumaya noloshoodii wax laga bedelay maanta kuwii loodu intay ka dhamaatay 92-93 abaartii qaxootiga la geeyey aniga hadda dhiijiyeen oo yihiin wasaaradaha agaasimayaashoodii ka yihiin noloshii miyiga way ka baxeen waxbay barteen waxay u baahan yihiin markaa dadkaasi hadday ritaanis noqdaan iyo hadday wax kala noqdaanba nolol magaalo ku salaysan ilmahooda wax bartaan future-kooda laga fakerayo mustaqbal uu ku xisaabtamayo in loo sameeyo taasaa marka waxay abuuraysaa in dib ba looga fakero war step-kanan hadda maraynaayo what's the next maxaan tallaabada labaad aan qaadi karnaa maxay tahay haddii marka arrinta abaaraha aan ka soo qaado dadka abaaraha ku waxyeelooba keliya maaha waxa hadda deegaanka jooga waxaa ka horreeyey IDPskii markaan dhoobleedan hadda ka soo qaado waxaa jooga ritaaniiskii ka soo noqday qaxootiga oo qaarkood ay hore usii dhaafi waayeen meeshaan ay degeen guryaha loo abuuray guryo yaryar baa loo dhisdhisay deegaanaa la siiyey dowladdu waad garan kartaa baahida dad meel la isugu keenay ama dani ha isu keento ama ha la keeno marka horebe nolosha waxa ugu muhiimsan waa inay biyo helaan waa inay hooy helaan waa inay caafimaad helaan waa in waxbarasho helo taa marka intaas waxyaalaha baahida maanta aan uga baahannahay gurmadkan abaaraha in loo sameeyo dadka oo ay kow ka tahay in la daboolo baahida biyaha iyo hoyga iyo caafimaadka iyo waxbarashada noloshii kale markaas raacaysa ase Jubbaland ahaan waxaanu kaga qayb qaadanay inaan horta bal bixinno dhulkii oo contributionka ugu muhiimsani waa dhulkii waxaan maandhood u sheegay meesha marayay dhul baahida dadkaasi ay jirto waxa lagu badbaadinayaa ay tahay dad iyo mujtamac wax kale oo laga xigsan karaa ma jirto masaalixda shakhsiga baahida shakhsiga danta gaarka ah waxa gaarkii la leeyahay kulligood meesha way ka baxayaan waxa asal noqonaya danta guud iyo dadka guud waxa loo qabanayo ay dhul kasta ama Kismaayo ha noqoto ama Gada ha noqoto ama tanaan joogno maanta ha noqotee baahida dhulka dadka wax loogu qabanayo ama la dejinayo ama guryo looga dhisayo waxaan diyaar u nahay wax allaaliyo contribution oo ugu horeeyo inaan u banayno dhulka u baahan yihiin iyo wixii facility ay nooga baahdaan inaan samayno waa waajibna faran oo meel looga wareega lahayn marka arrintaas abaaruhu Soomaaliya tirakoobyo khaldan baa jira meel heblaha intaas ku badan yihiin meel heblaha tana xuduudkiya dadka ka yimid from south west iyo central Soomaaliya gobolada dhexe markaan leeyahay southern central uma jeeday waa gobolada dhexe ee Soomaaliya waad ogaadeen 93 waxay soo beegsadeen inay qaxootiyadii galaan maanta markii inta xuduudka yimaadeen lagu yiri qaxooti ma jiro oo uu xidhan yahay oo xadkuna uu xidhan yahay qaxootina lama aqbalayo inay halkan dhigtaan oo gacanta maxaa keenay halkaan ay degeen halkaana waxaa jira khalad badan oo laga xisaabtami doono oo qiimayna oo hay'aduhu ay ku shaqeeyaan saladaasna waan kala kulmi doonaa UN OCHA iyo cid kastoo barnaamijkan coordinate garaysay fikirka iyo halbeega ay ku cabiraan dadka wax gaareen iyo say u degan yihiin iyo say yihiin waxay sameeyeen misliir garayn baa jirta waa si khaldan baa barnaamijkan loo hogaamiyo laakiin I hope inaan cidda khusaysa ka wada hadli doono waxaan rabnaa markaa dadkii halkan biyuhu kaga shidaal kaga dhammaaday xaggiina u gudbi waayay tanaa maanta arxano doolow baa la mid wada meelooda ugu culus waa Dhoble iyo doolow sababtoo doolowna kuwii soo gaadhay iyadoo wax lagu quudiyey ogaayeen halkaasay ku nasteen kuwana halkii la aadi lahaa waxay ahayd in qaxooti la sii gelayo ma jiraan taa markaa waxaan rabnaa inaad kula noqotaan qolo waliba hay-adoodii iyo fadhigoodii dadkaani inay u baahan yihiin noloshooda in wax laga bedelo mas-uuliyaddu annagayna saaranta barnaamijkaana qaabkaa loo qaato waxaa soo raacay Dhobley waa degmo
hadday degmo tahay waa inay ka guurto wixii shalay ay ku jirtay oo dhan standardka ama levelka wax lagu cabirayo ama halbeega lagu samaynayo barnaamijka Doobley waa inaad ka tagtaan tuulo ama beel la joogay la iska ereeriyanayay wiil yar loo soo dirayay shaqada la qabanayay iban maamulka isu duwayaashii iyo qaybihii hay'adda wasaaradaha wakiilka ka ahaa kulligood isbedel baa ku dhacay muxuu noqonayaa isbedelka ku dhacay dadka wakiilada ka ahaa wasaaradaha hadday markii hore ahaayeen levelkaas heer tuulo ama heer bulsho maanta heer degmo noqonaya qofka isu duwaha waa qof isu duwo level degma qiimayntiisa waxbarashadiisa la imtixaamayo shaqadiisa aqoontiisa dib loo fiirinayo miisaanka la saarayo uu yahay qofkani ma qaban karaa barnaamijkaas mu'ahal ma u yahay sidaa ma yeeli karaa taa markaa Doobley waxay u baahan tahay in loo soo diro oo hay'aduhu ay u soo dedejiyaan heer degmo waxaa loo soo dirayaa meel hebla ma aha every district has a districtgiisu yahay Doobley oo degmaha iyo shaqada laga qabanayo degmadaas degmada Doobley degmada Ceelwaaq degmada Garbaare degmada Kismaayo degmada Badhaadhe wadaba districtgaas shaqada uu leeyahay iyo hay'ad waliba cid ay u soo dirsanaysaa inay noqoto in loo diyaariyo barnaamij degmanimo waxaan samayn doonaa inaan hadda dedejino gobolka oo dhan Ceelwaaq baa ugu horeyn doonta Garbaare wadaba in la sameeyo oo barnaamijkii councilka loo dhiso si hawshii GBLG-ga iyo mashruucii dib u dhiska ay u helaan fursadooda marka laakiin waa in marka hore la helo miisaankii barnaamijka qaadi lahaa oo aad ku tala gashaan hay'ad walbana qof walba wakiilka uu wargeliyo kiiskii hore Doobley iyo wajigii hore inaan midna meeshaas hadda uuna ka jirin qof walba shaqada uu qabanayaa waxa asal inay noqoto shaqo hay'adiisu soo dirsatay hay'adaasi ay leedahay mashaariicdeeda ay fuliso laakiin in shaar kale iyo cover kale iyo teendho kale oo hay'ad kale ku jirta in la galay macna badan uma ay sameynayso waxa degmada ku soo kordhi doona xafiisyo cusub waxaan noqdeen ama heer degmo noqon doona qorsheynta oo kale si ay ula xidhiidhaan ama ay ula socdaan barnaamijyada guud state level ku xidhan planning ay qorshahooda wadaan hay'adaha kale loo daadejinayo xafiiskoo dhineed gareeya barnaamijkaas oo iman doona waxaa iman doona oo kale laamaha amniga oo kale inay iyaguna ase district level u soo diraan xafiiskooda oo shaqayn doono ama ha noqoto dabagalka hay'adaha for security ama ha noqoto clearance-kii waxyaalaha qaarkood ama ha noqoto shaqada la qabanaya laftirkeeda sida bari laaxad looga wada socon karayo oo barnaamijka loo daadejin karo ayna u ogaanayaan hay'aduhu waxaan lagu wada jiraay inay noqonayso shaqo laga wada soconayo